ma tahay xubin rasmi ah oo ka tirsan ururka cadaaladda iyo wadajirka JSP oo leh lambarka xubinnimada ee ururka. Waxaad xaq u leedahay inaad codkaaga ku go'aamiso qofka ururka ku metelaya doorashada qaran ee golaha deegaanka degmadaada. Waxaadna hadda si online oo casri ah uga qayb qaadan kartaa doorasho hoosaadka ururka cadaaladda iyo wadajirka ee golaha deegaanka degmooyinka gobolka Banaadir. Si aad uga qayb qaadato codeynta, waxaad u baahan tahay inaad haysato lambarka xubinnimada ee ururka iyo aqoonsiga gaarka ah ee codeynta passcode. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida aad ku heli karto, waxaadna macluumaadkaasi ku heli kartaa siyaabo dhowr ah. Inaad gudaha u gasho barta gaarka ah ee aad ku leedahay nidaamka isdiiwaangelinta ee JSP, halkaasi oo aad ka heli karto aqoonsiga xubinnimada ururka oo dijitaal ah oo ay la socdaan macluumaadkaaga codeynta. Ka hor bilaabashada codeynta doorasho hoosaadka degmadaada, waxaa laguu soo diri doonaa telefoonka aad isku diiwaangelisay iyo iimaylkaaga xogta doorashada degmadaada xilliga ay bilaabanayso oo ay la socoto lambarka xubinnimadaada ee ururka iyo aqoonsiga gaarka ah si aad u codeyso. Kadib markii aad hesho xogta la xiriirta doorasho hoosaadka degmadaada, si aad qayb uga noqoto codeynta socota, ugu horeyn booqo barta codeynta ee ururka ee vote.jsp.so. bogga kuu soo baxaya waxaad gelisaa lambarkaaga xubinnimada ururka, kadibna riix batanka hubinta xubinnimadaada. Hubin kadib, si loo xaqiijiyo ka qayb qaadashada codeynta doorashada, fadlan geli lambarka xaqiijinta aqoonsiga gaarka ah passcode ee ururka. Markii la hubiyo xubinnimadaada misena la xaqiijiyo aqoonsigaaga gaarka ah, kadib waxaad helaysaa barta codeynta rasmiga ah ee ka furan doorasho hoosaadka degmada aad ka diiwaan gashan tahay. Si aad haddaba uga qayb qaadato, riix batanka codee. Halkan waxaa kuu soo muuqanaya barta kala doorashada liiska furan iyo kan xiran ee musharaxiinta. Liiska furan waxa uu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah u doorato mid ka mid ah musharaxiinta liiska furan oo ay ku jiri karaan rag iyo dumar, halka uu liiska xiran kuu ogolaanaya inaad si toos ah u doorato mid ka mid ah musharaxiinta dumarka ah kana mid ah liiska xiran ee lagu taageerayo matalaadda haweenka. Si aad u kala xulato musharaxiinta, fadlan riix batanka itus liiska musharaxiinta. Kadib waxaa kuu soo muuqanaya liiska musharaxiinta u tartamaya doorasho hoosaadka ururka ee degmadaada. Waxaadna u codeyn kartaa keliya hal musharax. Haddii uu jiro musharax aad si gaara u daneynayso, waxaad ku raadin kartaa magaciisa. Waxaadna sidoo kale si gaara u akhrin kartaa xogta musharax kasta sida taariikhdiisa, aragtidiisa iyo ballanqaadkiisa manifesto. Marka aad ka go'aan gaarto musharaxa aad u codeynayso, waxaad riixdaa batanka dooro musharaxani. Ugu dambeyn, waxaa kuu soo baxaya barta hubinta musharaxa aad xulatay. Si aad ugu noqoto musharaxani, waxaad riixdaa batanka dib ugu laabo liiska musharaxiinta. Ama si aad u xaqiijiso codkaaga, waxaad tigta saartaa waxaan xaqiijinayaa inaan hubiyo musharaxa aan doortay. Ugu dambeyn, si loo kaydiyo codkaaga, riix batanka hoose ee dir codkayga. Hambalyo, waxaad ku guulaysatay inaad codkaaga uga qayb noqoto go'aanka qofka ururka cadaaladda iyo wadajirka JSP ku metelaya doorashada qaran ee golaha deegaanka degmadaada.